oo argumentkaaga waa inaad qancin karto waayo halkan meel warku iskaga taga ulma qaluul ugu taga baa warka u taga ay shisha waxay isu geeysaa waxay wax ka soo saartaa markaas waa inaad u dayso bad iyadu inay gabayaaga wanaagsan waa ninka ka qayb galiya qofka dhageysanaya waa ninka ka qayb galiya tooda waa inaad ka qayb galiso oo kala qayb galo waa inuu judgmentkiisa aad ka qayb galiso waa inaad isku daydo inaad qalayso مثلا waxaad samaynaysaa ninka qoraaga wanaagsan ama sheekaha qorayo ama ha qorayo kitaab ha qorayo gabaha gabayo he must leave something for the imagination of the listener or the reader cidda ku dhageysanaysa waa inaad bar uga tagto imaginationkeeda markaasaa waxaa ku qurux badan yahay oo eeg waa inaad tajriba ka qaybgal inaad ila judge karayso eeg waxaan arkay inaan baan arkay anigu bari aniga oo yar baan arkay waa yara xamal baa joog waxaan arkay inaan aad u qurux badan baan arkay imika qurux badan u arkay waa meel wala taaway aad baan arkay marka waxaan ahaa dhowr ilaa 10 jir baan ahaa waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda la foole ayaa jooga markaasaa waxaa igu yimid ninka Cabdiqays baa igu yimid anuu macallin baa jaamacadda ka ahay Ramadaan baan joognaa sanadkaa ka shaqeynayo waxaa imika laga joogaa waqti badan baa laga joogaa anuu laati jil baan ahay waa galabtiina markaynu Soomaaliya waa tan cadceedina waa mid khayr badan oo khasay u dhacdaaye taayada hore uma dhacdo taayada xaggaasu waa mid soo taagan tiina waa dhacdaa lagu leeyahay dabeed waqtiga dijiilaalka ama kala waalid oo gaareed ku dheeraatay sabarkii waa gaareed ku dheeraatay marka aad soo tahay 4 iyo 5 markii gaadho ilaa eedaaba tasho degdegan laftu hoos ka rabtay oo gaar gaajaysantaa ayuu iska loo dacaydo ayuu yimi kolkaasuu wuxuu yidhi waxaynu tagaynaa afkooyeyna wadi gaaribo wataa waa soo raacay afkooyo waxa ka sukaysa beer baa ka sukaysa beer aad u toblayna loola jiray imika waa lukala baabiye cagta la bariyay ayna markaa mooriyaanta cagta bariyay deemeeyahay qurux siiyay baaxid waa garab barwaaqo beertu way haysataa ilaa kuliyadii beeraha ilaa iyo afgooyo beero wasaystaa litaasay soo qarisay waxaan ku soo horbaxnay hablo beerta dawladda iyo lahaydo warshad loo jiro itob qoladii leedahay balaag qoladii hore garanaysa ayaa loo guri jiray oo qasacada samaysa ayaa loo guri jiray wax marka laba geli jiray galabta habla galay habla waxa la quruxdoodii buu ka yaalay waash maakiyo iska galuun kolkaasaanu agbar biraysaa gaarigii wado markaa dhaafaynu bireego waar biyaa hablaha halkeenu baa bireego ku qabtay hablaha dhaafayna baraad loo dhigtay garbasaarahoodii intay luka dhigteen gutuunooyin yar xidhanoo quruxda aad yaabto ay ahaayeen hablo warka baraad waali baraad laayeen bireegii aan ku qabanay iyaga oo ubaxa gaarayo isla urursado guranaya isla tiigsanaya ayaa waxa naga soo iyo baraadaanti iyo bireegaan ku qaban ragna may filayn oo isii baraadlay waxa markaa hareeraha waxa may dhuganeen hareeraha waxa ka jira may dareysanayn waxa hareeraha ka jira may dareysanayn waa markay dumarku isku kalidoodii hiiraan waxba iska hatta haday qaaway deysmooga marka ismaqooga markay kalidood way joogaan oo maradu ka dhacsan tahay way oo intoodii ugu qurux badan markay wax tiisanayaan arkaysaba ayaa oo daba shaqeeyo oo shaydaan dheer wala shaydaankina waa maraya luka shaydaan baa maraya dhalinyaro waa dheelay kolkaasaaro inantii baa waxay aragtay inay aanay markaa ayaa naxday qaasay hoos u hogotay inantii markay hoos u hogotay ayaa waxa ka soo baxay ilaa balaadu waxa la laba dhalinyaro laba tiro istaawar dee markaanay odagal dee fooruq shaqo markaan baa la yelo food la balaade kolka quruxda inantii markay foorursatay baa waxa ka soo baxay yaa salaam ya rabb al ibaad
waxaa ka soo baxay jamaalkii la yidhi dee diintuna kuleysa aad haweyga haddaad iska yareegaysidii ayaa soo baxay nin carbeedoo shaydaan ahaa loo jiyaa bilawaas baa wuxuu yidhi yaa rabbi khalaqta aljamaala fitnatan yaa rabbi khalaqta aljamaala fitnatan waqulta yaa cibaadii taquunii buuri oo wuxuu arkay dee isagoo naftii bini aadamkii baa dee alamaaratu bisuu ayaa ku yara jiidanaysa marmar kolkaasaa inantii baa khajishayoo way hogatay oo markay hogtaanna cidiyahay hoosta ka cunaan cidiyahay la qalinaan markaa waa markay ugu quruxda badan yihiin ilaahay wuxuu abuuray markaas dumarka haddaad doonayso quruxooda kaga xajoogti nabarkaa inaba ku balash garoobo laa ilaaha ila allah adigu jabaal ilaahay baa quruxda abuuray quruxda jabaal ila ilaha aljamiil wa yuhibbu aljamaal ilantaasu dabeed markaanu aragnay ayaa cabdiqays baa igu yidhi dee dhalinyarana waanu dhahay ayaa wuxuu igu yidhi wax ka dhadee amba iska daa waanaba wax ka dhaabaynata wax ka dhaa amba iska daade kolkaasaa qoraxdii aan markii hore raagsanayay ayaa waxay iigu dhadhatay inay degdegayso oo ay degdeg u socoto ayay ila egaatay kolkaas waa khayaal shacr waxay u egaatay inay degdegayso kolkaasaa la yidhi xagee ku cararaysaa talo wali hadalka waxaa ii geysay inaad uga tagto qofka ku dhagaysanaya judgmentkiisa qof inaad wax uga tagto inantii labaan hadale anigu qoraxdu baa la hadlo qoraxdii baa leeyahay waa la tahay xagaad ku cararaysaa maxaa ku weeraraysaa maxaad cararaysaa soo tiyaad markii aad gaabinaysay markii aad joogtay maxaad cararaysaa ma waxa markii gurigaad ku ma caruurtaadii baa laayo waxa lagu yiri dhiila lagu soo sheegay oo waxa lagu yiri godkii aad ku cararaysay baa dee caruurtii lagu laayay maxaad cararaysaa ma waxa lagu ma waxa ilaahay baa lagu ma waxa ma waxa isleedahay inanteer baad hay kari weyday oo quruxdeedii hay kari weyday oo yani intaad si way ku sheekayso waad ka cararaysaa ma waxa isleedahay dayax soo socda su'aalaha anigu su'aalaan waxaan weydiinayaa dhagaystahaygii ayaa su'aalo weydiinaya anigoo cadceedda u maraya cadceeddaan u maraya dhagaystaha ninka la hadlayna waa isaga waxaan doonayaa inuu igala qayb galo doontaa uu yidhaaho ha malaha inatu cadceedday ka bara isagaan u daynaya inuu go-aanka ay la gaadho jajbakaadaan kuu daynayaa lislarkiya hayo malaha inantu cadceeddu waxay ka khajishay qoraxda malaha maye dayaxaysoo waan ku hordhigayaa adaanan kuu daynayaa jajbakee anuu go-aan ka gaadhi maayo gabadhaha cadceed yahay u sii faana guratee casar gaaban liiqii godka weeraraysaa go-e fule miyaa tahay aaway gaabiskaaga iyo sargulguuladkaaga iyo go-e fule miyaa tahay waa maxay garbaabadu magogooska sagalkiyo gamasida shucaaca gaada kaa horeeyiyo gurigaad ku heelayd warkuu gubay ka soo diray kamaa jawaabin anigu arrinkaasi adaan kuu daaya inaad ka jawaabto magogooska sagalkiyo gamasida shucaaca gaada kaa horeeyiyo gurigaad ku heelayd warkuu gubay ka soo diray mise gabadhan godhoolkiyo gugooshaalka xaytiyo fad galbeed la moodaa kolkaad geliis dhugateen guluubkaaga shiikoodu buguradku waa baqe waa su-aal iyaduna jajbaka adaan kuu daayay mise ganacshabkaaga iyo waxaad galabta mudataad intay goorigoor tahay dayax soo luguyilaa sii wargeli isleedahay qaabkaas waa qaab loo dhigi karo oo wuxuu gabayaagu u daynayaa jajbankaaga adiga ayaa laguu daynayaa inaad qayb ka jawaabto ayuu kaaga tegayaa mar gabayaagu oo wuxuu kuu daynayaa inaad adu ka hadasho waayaha waan arkayaa in hadalkii la doonaya inaan soo gaabiyo waxaan doonayaa inaan ku soo xidho mar wuxuu isticmaalayaa wax la yidhaaho parallelism ayuu isticmaalayaa gudboonay wuxuu qaadaya waxaan doonayaa mintale inaan kaa dhaadhiciyo waxaanad aqbaliba karin wax kugu adag waxaad eegtaa gabayaabaan kugu sheegaya wase shari agoo gabiyey ayaa wuxuu doonayaa inuu fikrad adag oo igu qanaan inuu iga dhaadhiciyo fikrad igu qanaan inuu iga dhaadhiciyaa buu doonaya markaasuu wuxuu u baahday inuu argumentkiisa soo dhiso biniaadam communication way gabaya waa inaad mar walba waxaad doonaysaa qofkan sidee baad u fahamsiinaysaa mar darabayaashaad kaga imanaysaa mar maskaxdaada aan ogahay si aad cali tahay wuxuu doonayaa wax adag inuu iga dhaadhiciyo wuxuu isticmaalayaa wax qalabka la yidhaho parallelism oo ka mida qalabyada suugaantu adeegsato gudboonayaal baa la yidhahaa gudboonayn baa la yidhahaa
fikradda uu doonayo inuu ii sheego ayuu fikrado kale oo la baaralala oo fara badan oo la baaralala buu qaadanayaa markaas fikradahaasi ayuu soo dhisayaa oo iyada u wada eeg haddaad imika doonayso inaad qof haa kaga siiso waxaa soocaakaasi maaha waxuu dee haa ku odhanayo haa badan soocaakaasi maaha haa marka dambe aad doonaysa gelisa haa buu ku odhanaya argumentka waa qaab loo dhiso oo argumentka qoladiina dhigataan dhallinyarada waa laga yaabaa ku dhigataan marka communicationka laga dhigayo communication asluubta communicationka waxaad haa baad kaga siinaysaa haa parallelism markaad isticmaalayso waa qalab ina maskaxdii biniaadamkaad adeegsanaysaa oo aad doonayaan wax kala dhiciyo waxaan odhanayaa nin baa wuxuu doonay inuu iga dhaadhiciyo gaal iyo nin gaala iyo qolo muslimuu doonay inuu isbarbar dhigo waa 100 sannadood ka hor markaasuu wuxuu doonayaa inuu iqanciyo inaan gaalka raaco oo aan muslimka raacin miyaanay ku adkay qofka way ku adagtay inaan gaalka iyo muslimka gaalka raaco ayuu doonayaa inuu qanciyo markaasuu wuxuu gartay inay dood adag tahay dood adag inay tahay wuxuu isticmaalay asluubta uu isticmaalay ya salaam asluubta parallelism ku isticmaalaya bal haduu fiirso fikradiiba wuxuu qaatay fikrado kale oo la gudboon oo la parallel oo aad haa odhanaysa buu qaatay wuxuu doonayaa wax wanaagsan iyo wax xun oo ay tahay waxa xun aad raacdo dood saas u dhisaya gabagiisa sidee bay ku imanaysaa markaa taas wuxuu isticmaalay balaak tuuliska la isticmaalaya wuxuu isticmaalay wixii wanaagsanaa ayuu iinu yaalay maalis negative calaamadii wuxuu waagsay laakiinse buu ku leeyahay laakiinse intaasuu leeyahay waxani wuxuu yahay laakiinse wanaagaasuu leeyahay positive buu yaalay had buu ku gaarsiinayaa aad qaadato positive tiilidatay oo wixii wanaagsanaa adigu waad qaadan lahaydee wuxuu daba dhigay in yaroy leedahay markaas oranaysaa wallahi yeelkeeda adoo waxaad arkaysaa tii xumayd iska qaadanaya tii xumayd logic xasuus ila gaar iyo muslim ku kala doorasiinaya wuxuu soo dhisay wuxuu yiri madi cararta maqasheeda koris milow sabaadalta ayaa gabayga ku jirta inuu maan kala soo baxaya madi cararta maqasheeda koris milow sabaadalta wuxuu qaatay hasha madidihi waa hasha caanaha badan ee aad u caanaha badan ayaa la yiraahdaa waa madi baa la yiraahdaa marka hasha caanaha badan iyo markay ku jirto taqaanaha yara dhaqayaan caanaha badan lahayn hadii lagu yiraahdo kala dooro waxa dee dooranaysaa hasha caanaha badan laakiin se ka waraan ku hadii lagu yiraahdo hasha caanaha badan laakiin se qararaysa aan baali karay buu tabadhiga eeg madi qararta eeg hayska qaara badnaatay ma baali karaysid oo way kulaadaysaa wuxuu ku yiri madi qararta maqasheeda koris midow sabaadalta buu oo iska qaarayro laakiin se dee la baali karayo loo geli karayo markaas oranaysaa waariyelkeeda taa la qaata adigoo laba waa taa la qaata adigoo le eeg wuxuu dhisayaa mataalidi qalaas bilaa ku bitim islaama buu isha mataan waxa la yiraahdaa isha biyaha ee burqata ayaa mataan la yiraahdaa isha burqata laaskuna beeyoyda weeyo marka meesha ceelka qodo waa biyaha yar ee la gaadho oo markiiba way dhamaadaan laasku uu dhamaadaa oo intuu soo baaxdo ayuu dhamaadaa kolba haddana waad qodaayo dib baa laaska biyaha waa taqaana waa harka ay ka timi erey marka etymology-ga laga hadlayo waa la laastay waxa waa qaali laaso sida laaskay ka timi laaska markiiba gura laaso ereyga halku ka yibi feebkaas waxa weeye marka etymology-ga waa halka waa tahay laas iyo mataan markay ku joogto laasku doo kolba wax soo maaxaya iyo mataan burqanaysa wuxuu yiri mataan lidi qabuul وأتشو أوريسا والعدو قال كل ذق ومركي أوريسا حولو قال أوريسا ورجع إنه بطارة تي واحد كدور بدايسا لا سكنا ضيفتها لا سكنا ضيفتها هاي سكوابي يا راد إيه وانا ضيف ما خسا واحد كيسا ها بعض أوريسا وارتها لا سكبيها يربع نامه باشا هورنا وحكوسو أقبل سي
تعالى حير بعد أنت إلا مالك يا أيان أنت تعالى بدل إلا مالك رين وحيدي مروع عمل حلو من قبل كان بقى شباب نعتبر وهو حديت شيء ناقها ناقي ما تكفي عن توكل عرفتها ثلاث عرفتها ثلاث ناقها فريدة إنك كلكها وحتركها دير ريرك عرفتها سليش وهذه وأقول ما هبيكي بين نفط ده كله بس نفط كله بس ما أيوة بقريزة مركا وحيودي مروة كسها تين لبلا لا إذا ما قابت دوت مروة فاعل هاي إبك ما قابت بس كقبل يسابر كتب عمل حبينا لو كتر تبى سوق قطع ما قابل جاهز كمان يلك سبع ده وحبق له أيا تبولي وحكو صار لي سي مركا أقبل لوتش كان برهده وحا يكتال building of argue halkaa eega waxaa egtaan toolska gabayaagan boqolka salood jiray toolska uu isticmaalaya eeg wixii wanaagsan uu inta u yeelayo wixii xumaana uu positive u yeelayo uu by the power of his argument ayuu ku qanacsiinayaa wixii qalad wixii liitay waa power of argument weeye oo imika lagu dhigto toolska modern communication lagu dhigto weeye hadaa imka luqooyinka dib u barataan qoloyinka la yiri waa modern tools of communication ayuu isticmaalaya 100 years ago kabayagaas wuxuu hadalkii ku soo qorayaa tolka maarbay tolkii waa la jecel yahay laakiin haduu ka maarban delaf male ka maarbadaas ku yara xanaya maarbayda ayaa ay kugu dhacsiinaya tolka maarbay gacal kaamil shiyay mudana ka laxday xididkii aan maamuus lahayn malihi baa dhaantay يا جودي وأنا في سحيد كان ماموس كلا هاي الدم اللي هي dadka Soomaalidu waxay tahay laba kala qaadtaa waxa jira xidid dhaqan xigaal leh dhaqan xigaal leh iyo xigaal dhaqan xidid leh labaduba reerkoodii gabay baa la yiraahdaa waa labaduba waa la baabi bay Soomaalidu tiraahdaa waxa wanaagsan xididku xigaalku horta xigaalka dhaqanka xidid leh waa in adeerkaayo dadku xigaalka waxa la yiraahdaa maarada imka saaxiibada xitaa ku galiyay saaxiibada halkooda ku jira xigaalka ninka xigtada tiin waa ninka geeriyo loo baa wax qaybsataa bay Soomaaliya dhaqankeeda ku tahay adeerkaa jeebkiisa maalin kaltee martii karto aad gurigiisa gali kartay naagta dhiriga la dumaashada baa guriga joogtay naag ka soo ridaado la karayso xigaal baa ninkaati xigaalku hadduu dhaqan xiriir kugu yeesho ka waran oo ku raaho albaabka soo galaa ma soo gala albaabka ila adeerka waa naga tabaarus شيل البعض يا ماهين ذاك قولي لماتا بكابه هذا قالك ادو halka ku yiraaho wanaag tabaarus waaxi yaa dhaqan xidid leh waaxi yaa dhaqan xidid loo ma wanaagsana oo waxa jaqashay inuu daa guriga soo galo boobo jiif soo baqantay reerka si kale hogaamadu waa inuu xigaalku waa inuu dhaqan xigaal yeesho oo ku boobo dhaqan xidid hadduu kugu yeesho iska hawliyo protocol wiiga daba ku soo qaaday bariya ku yiraaho waa balaa wadacaysa xididku hadduu dhaqan xigaal yeesho waa balaa oo seediga hadduu barruubka kugu soo galo adoo jiifa jawaabsh ama meesha lagu kula qaynayo ku yimaado oo ragay saxay kari weydaan waa xidid dhaqan xigaal leh waa ibkaari ku dhacday kaasura waa bashir marka kuwaas uu sheegay gabaygu leeyahay xididkii aan maamuus lahayn malihi baa dhaasay kuwa uu leeyahay kuwa oo waxa badalay wuxuu ku soo dhisay argument qaynkaas buu soo sheekadu ka hadlayaan waa ina Cabdilla Xasan iyo gaalkii Ingiriiska wadanka joogay buu ka hadlayay doonay marka ina Cabdilla Xasan buu ka horyibi ninka gabayaagi markaas uu leeyahay muslimnimo ninka kugu dhaqayn muuminimo khaasa gaal maxasta ku dhawra oo magasataa daabagu daalugu waxaan isleeyahay gaalka filaa jooga muslimka Sacuudi Arabiya jooga uu diin dhaawaan isleeyahay boqorka ka hadlay boqortooyada Sacuudi Arabiya ilaahay habaana ku ridii uu diin dhaawaa boqortooyada filaan baa diin dhaanta
قال بحسنا كونا هورا أو مقصصنا هالكاس روحوا بالأرجيومات كاسو صار لسيتاي أو واحد يا باراليزم قلب كأو استعماله يا واحد ليناها باراليزم مربى واحد أذيك سنة يسا بارادوكس باليناها واحد أذيك ستا سلسلة باب سمال قالوا واحد أذيك ستا the surprise nature filashada qofka ayaa surprise ku keentaa bakhasan waxa ka soo qofkiyo sidaa kaga siisay ama yaaniga misaal waa qalab la adeegsado si la suganto waa qalab la adeegsado oo fikirka maskaxda si qofku sidii uu fikirayay ayaa waxaad ku soo saaraysaa qodob surprise oo ka wareero haddaan qaato example tiraab ah نيكل لها سومرست موغم وانين إنجليزها سومرست موغم وكيري دوتان قولي لو أحبرت الدكشيرية ده سومرست موغم وحوية وانسو جايها لو قراوي شكوي كقرا وحلا هذا وحو قراي the shortest short story أيو قراي the shortest short story بقراي سومرست موغم waxaa la yidhaahaa appointment at samara appointment at samara baa la yidhaahaa waayahay ballankii samara waa short story waxaa leeyahay waxa weeye short story waxaa loo leeyahay short storygu waxay leedahay qawaaniin iminka nin waloo internetka markaan galo waa yaabaan qaar sheekooyin qoraya qaar qoraya haddii ku roo yahay gabayo qoraya war horta wuxuu waa leen waxbaa la yaryarka wax barta horta marka hore horta baro qawaaniin baa jirta oo creative writing waxa la bartaa creative writing ayaa la bartaa oo la qawaaniin oo sheekadu inaad si inductive iyo si deductive inaad u sheegayso horta ku kala caday weey oo aad ku kala qoran tahay oo plot-ka iyo conflict-ka inaad abuuri karto antagonistka oo climax iskaarsi karto oo resolution sheekada u yeesho sheekadu plot leedahay ayaa plot marka waxa la yiraahdaa monoplot sheekadu markay tahay one plot leedahay ayaa la yiraahdaa short story yani laba plot lahayn laba sheeko isku dhex jira marka lahayn ee hal sheeko kaliya tahay haddii kale dhowr plot ma isdhex gala oo parallel sheeko kala short story oo sheekooyinka one plot ka ah oo buuxisa qawaaniinta markaa qawaaniinta short story qof walba qalinka hayska qaadin ee faham baa dhalinyarada dambe kula talinaya marka ay waa sugaan qawaaniina weelada ko anyway marka short story gal leeyahay waxaan uga hadlayaa taa technical-ka ah ee cilmiga ah ee ka hadlaya ayaa la yiraahdaa waa the shortest short story ayuu qoray Somerset Maugham oo la yiraahdaa appointment at Samara wuxuu isticmaalayaa qalabka la yiraahdaa paradox intaan uga dalay si la sugan waa qalab isticmaalaya waxaad filaysa maaha wax kala kula kulmayaan oo ka yaabinaya si la sugan baalay wuxuu yiri ninkii u shaqaynayay wuxuu u dirsaday sariibadii ninkuna waali taajir halkiina dal isuma dirsaday wuxuu ka soo qaatay sheekadooda carabta ka dhacday oo kale ayuu ka qaatay wuxuu u dirsaday ninkii u shaqaynayay buu sariibadii u diray wuxuu yiri ordo wixii soo iibi waali taajiroo beer weyn iyo guri weyn leh waaya oo soo eegaysa waa soo dhaxay intuu yaabay buu yiri what are you maxaa tahay buu waxaad saa u agtaba waxay tiri I am death waxaan ahay geeri bay tiri geeri baan ahay sabiilkii iyo wixii uu siday iyo kabihii iyo wixii buu halkii ka isagoo ordaya oo kabiya gabdhood ligiskii dhinac ka xariiqmay oo go'ay ayuu ninkii saxaafadii u yimi beer way buu ku leeyahay oo guriga halkaas uu baradaas oo fadhiya faraskiisii halka taagan buu fuulay iyo teedaday oo fuulay kolkaasuu ninkii baa war wada u yaabay ninkii war oo biyo maqlaya war maxaad aragtay faraskii buu sii jeedlanaya kolkaasi buu wuxuu yidhi war qarraya oo xagaad ku qarraysaa waxaan arkay geeri oo xagaad qarraysaa waxaa isla buu yidhi gabalku intaanu kaa dhicin samaare gaad markaa malaha Helsinki buu joogaayo Stockholm oo kale ayuu doonaya inuu gabalku uga dhicin ayuu leeyahay oo dadka baxsada bahasha
ayuu doonayaa samaanaa doonayba inaa gaadho buuri oo ka gaadh baan isleeyahay intaa qacadu kaa dhicin intaasuu ninkii ka sii maqlay markuu sii calinayay ninkii baa soo baxay oo yaaban sayladii buu yimi wuxuu ugu yimi khabartii oo fadhida oo sidaasoo fulaalkii kala haysa oo jir aad moodo eeyaahe maxaad ahay hooya geeri oo ninkii saliimadda maanta aan soo dirsaday maxaad u sheegtay uga dhaxaysay alla hooya kamaa dhaxin waxba baa sheegan bay waan hubsanayo waan la yaabanaa bay waxaan ugu soo noqonayay miyaad waala tahay baan islahaa bay waan hubsanayay oo maxaad ka hubsanaysay wuxuu halka ka qabanayaa baa garan waayey galantaas samaano balan kula lahay waa waxaa kaa qusayay qalabka waa u isticmaala waa la iga joojiyey wali xadiisi baqiya وساعة على وين؟ martida iyo suugaanta dhinacyo badan ayaad ka taabtay dhinacyo badan baad ka taabtay suugaanta iyo siyaabaha loo adeegsado maskaxda laakiin halkan aanu joogno imika wuxuun baa nagu dhiba waaya waxa weeyaan waxa nagu dhibo waxa weeyaan caruurtii xaggaa markii aanu joognay dee communication environmentka ayaa saxaya in iska sii daayo oo xorriyadiisa intuu qaato bayadda ka barto ama mujtamaca ku dhex jiro ha ahaato ama literatureka aad tilmaamayso iyo suugaanta aad tilmaamayso qaabkii doonaba ha ku heleen ayaa wuxu dhigi jirtay oo tarbeedayn jirtay ama la isku fahmi jiro communicationka u jiray halkan aanu nimid derbi yaroo afar qola ayaa la isku soo kacyo xiray dhawaaqayagii waaba isgaadhi la marka suugaanteena ma ku jirtaa qaab loo adeegsado oo wariskaaniideed oo loola isticmaalo caruur odnaad magacaygana haddaan soo ururiyo de waqtigaalagu badan waxaan arkay halka markaan iminka eegay waan arkay communicationka wuudi ka lumay ninkii carruurta af aydaan noqono waabay barteen idinkuna afkana waaba kala waxaan arkay guryahaad soo galayso yarku geemubaaba ku jira waxba ku foolaa in xudii soo gashay makalma waxbuu waa taaran hawaayigii oo dhan baa kala go-ayba dadkii waan iminka anigu ka qof afkafkan ku shaqaale haddaan ahay halkan umaan iman inaan idinkan wax idiin sheega un waxaan u imi inaan idinka barto waxaan arkay wax badan oo idinka bartay imika oo dhibaato duruuftiina ahay oo aanan marka hore dee aniga maskaxdayda ku jirin ilaa qofka waxa ugu horraysa intuu inuu waxa arkan dee doorka dambe aad baa itixaami karaysaan oo waxay odhan karaysaan war waataan wax ku tusnaya maxaad dee haysaa waa in la helo duruuftan imika halkan aan ku arkay waa in la helo erayeer yar oo basiida oo sugaameed oo aadaada igu qoonsana haddaan idhaha hore uma jirta dee waayo duruuf caynkani weli dadkeena may soo marin dee iminkase markaan iminka idinla arkay waana gaadhsiin doonaa ayaadaro sugaanyahankeenu wada mutacalimiin maaha ila tacliintana ayaduna muhiimadii qofku inuu gabayaan yahay macnaheedu maaha inuu waxana ka hadlaysaa wada fahmi karayo wuxuu u baahan yahay inuu dee cilmina leeyahay waanuu yaryahay wax cilmi leh oo yani sugaantana yaqaana wuu yaryahay ayaa daradaasa ila haysataa balota intooda cilmiga leh oo tiro yar waxaan la soo hadal qaadi doonaa waaqica halka yaalla sida axmed u sheegayo waa inuu jiro communication waayo afafka kaleba waa kuwa kale dee oo dadka kale amba Tom and Jerry baan maanta Tom and Jerry baan laga dhamaanay badeeyo iyo sheekada dhex martay ayaa sanadadan musalsal laga sameynaya waxaa jira heeso yar oo cabdi iga sheekeeyay inuu tilmaan la fadhiyo xisaabta ayay ku bartaan biiguud heeso yar oo xisaabta ku bartaan ayaa jira oo geedka shash birood baa fuushanaa xabad baa ka duushay bay ku heesayaan afar baa ku soo haday laba ka duulay saddex baa ku soo ilaa iyo marka dambe geedkii baa soo haday inay tiraahdo ila tayari ilmaha maxay baraysaa waa hees ay ku baranayso subtraction ay ku baranayso
waxa ii muuqatay maraan iminka halkan idinku imi baahida loo qabo iyo sidaan wax uga qaban karayno laakiinse waxay kuu bilaabmaan markaad aragto oo waa mashkilad weyn oo xiriir furanka keentay ay tahayna inaynu anaka qoladii sugaanto waxidka inaynu iska kaashano kolleyba anigu arrinkaa waxaan isku dayaa aadaskareeyo isku xidhnaanshaha xagga qaybta sugaanta iga baahantihiin dhinaca sugeyn waxaa jirta baa laygu tusaya ustakornaagdees carruurtuu ka sheekaysa oo carruurtuu u sheekayn taqaana waa in la helo balintira jirkooda ayaa lahay tusa siday waxay uga sheekeeyaan si wax u dhigma oo aan ugu kala talagala xitaa kuwiinan iyo kuwii xaggiina la joogayba in la sameeyo marka baahidaas way jirtaa waana baahi aynaan adres garayn ilaa يا أخونا أبو محمد عاشق معكاري سؤال شيء وحوي يعني توصل وحنا أبدا يستقبل فرضان وترسل وقارئ أي كبح صناعية الشديدة الصومالية كبح صناعية وسفير واحد عندي أصلا بها بشر دينا قارو حمود درتي نفس مانديلا قارو حمود درتي لوكري شعب ليبيا العالم كلها رشوة ما هي ستو عشان دي ما هي سا كبير جيرو خالص صدوق ولا يا بي وحنا كلام لا حنا صدوق ولا بير أفقو يقول وتشري شنو أنت أكبر لسنتين أيام كبر كلا هلا ست بلد ولا هلا أيام قبل يا كتيس وحوسع على إنا حاسو إذا لدرين هذا مطلوب من أيوب بدون سينا في سؤال بس لكن أهم بتري أن جعل هذه الجثة هذه شيء هذه كلام محل بعودين أي شيء أنا كان تبي واحد وياه قبل مدام لحدا سنة جسدين مكوا مسجد مساجد المسلمين تصدحات هو أقصى الليلة وقعد عدم كل كجرا ليك بدل نقطاتي اللي يفرض ضمنا أي كسر بحين مقعد أنتين ماله وحقاد جعلنا لها أبوانكارية هذا رجع وحكيري أما مسجد وحكيري أما عدم وحكيري إلى هذا يجتوينا مقلوب هذه كلام إلى حال أفكار الوصول إلى طريق الشيء فإذا كذا لقلب يحيى waxay sharafa niman waalid ugu toosanay ninkan Yaxye Sheekh Ibrahim saaxiib baan wahay yaani ilaahay waxaan wada galay masiira dagaal baan wada galay ilaahay xariis Allah siiyo aabihii iyo wixii muslimiina kala geeriyooday waa dabqaday markuu imka ii sheegay magacay shabeeyada jircooday waayo wax dhoosh badan baan soo wada maray aabihii waxay soo maray qasaa'idkii ma soo yifrabadan waa tii ayaa waxay iga lumeen intii aan weestahay nasiib wanaag dhowr baan helay waxaan ka helay ingiriiska yacni khasaaraha burburka dhacay bay ku jirtaa qaar waa raadinayaa waxaa jira qasiida Beirut la yiraahdo oo iga luntay oo masalada Falastiin iyo baabaeedu aan kaga hadlayay waxa ka xumay waa qasiida cidii aragtana waa ka codsanaya waxa kale oo qalqay qasiida dardaaran la yiraahdo oo iga lunto deeladii ku khatinayd baa jirtay waxaan helay dhowr qasiido oo kale oo iga lumay waxaan ka helay ingiriiska horta waxaan albisu sheegaya inaan tiriyay laakiinse bidaad qasiidadaas iga maqan tahay oo markuu hataa Falastiin tiriyay oo toos ugu maqaabay ana Beirut baa tiriyay laakiinse ay waa duubay waxaan u duubay nin Siilaaye la yiraahdo baan ugu soo duubay oo ingiriiska jooga cajiradii waa ka waayay qoraalkeedina wuu iga lumay waa la yaboohiyaa baadida lutay horta waan yaboohinaya kow waan yaboohinayaa waxaan ka mid ahay albisow gabayaaga ku qoray yaani midida wax ku qoray Falastiin qadiyadeeda qasiyada Mozambique qasiyada hadda ku rooyahay wax badan baa ka hadlay ilaahay baa ka hadlaa oo yaani risaaladeenu waa risaalo caalamiye weeye marka bari bashar baynu marka dambanahay
bari البشر مري Soomaaliyeed baan ahay marri Afriqiya baan ahay marri dadka muslimka ka tirsan jazal waahid ka tirsan baan ahay mar waxaanay bashariyada ka tirsanahay oo intaba aan soo arkaya inaan lisaankoodii yahay wax iga baaji kara qodobkaas maanta waxa bay maraysaa waxaan jecelahay inay ku keeneen qasiidada najeena aan leeyahay waa inaad aragteen waan u maleynayaa aan kaga hadlayay dhibaatooyinka nimanka haystay xukuumaya aan hoobinaan qasiidada helo qaar cusubna ka tiriyo yani waayo waxay maraysaa maanta maraysaa dadkii waxay marayaan yani marxalad ayaa cadownimada iyo xasuuqa bini aadamka lagu hayaa bisbil irhaab iyadoo laga leeyahay wax waliba waa irhaab la leeyahay oo la marinaya عربيد بابري وحوري ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء بودي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء بل واحد كورتها قف بو كحل يبودي لما ينتو لما الدبلا وحري أيوب بدخل نحتو ريبودي صدور قرية بك قفك لما الدبلا وحري وبطي بك سوري هذا لا اسكتشري حقوينا إلى واضح عرقوي بودي فهذا لي بك لما الدبلا كحل بيكوردو أو كولادنا عرقوي كورن عارف كتاسا ما تحيستا وحسين حيستا هذا تشوقت هذا waxaa taasaan taala marka wax laga hadlo way tahay waana kuwa horena waan ka ilaa ka oran doona su'aal ka taala maxamed xawi inta magac ku qoreen hal inooga sheegta ama waxa nooga taabata gabayadii caruurta ee aad tirisay sanadaha gabayada tirisay caruurta sanadka caruurta xilliga aad joogtay Muqdisho waxa la yiraahdaa kabacasay sanadku wuxuu ahaa 27 ayuu ahaa إذا كواب على شيوها أنا واحد شو خبر هذا حسوستان سنة كعروطة وحلقوا غبطي حمر باب بدأ حويله محمد سياد بري وحو أيا سنة كاسات سبعين قلوبها كنا حيسا 30 سنة لا يبقى واحد يقول يعني سنة دول بوحبي وبحسها وحلو بحي سنة كعروطة 30 سنة لا أيا وحاسب بس أدوك أوردن إن عروضة بلاسية حجريبة أدوك لقى حب محمد سياد وحو غبطي شروي أو دولة إنه غالب كوموتشيو إنه يهي من عروضة دريالة لكن سنصيب درهم حمر وذا قرور دبتي لباكي في قرور وذا قدار شاحدة أي حمر كانت تعج بالملايين والملايين من الصغار المشردين أيها يكبوا حي صدوا إلى هذا دول سنة رواسات كعروته حقي لك يا دي إذا قال الوفد بويا قالوا ويا ريتي قال يبريسا أو فودا عرب يبريسا وحالوا لي هاي قالوا وحال هاي كعايها كي عروتا أكاسي شيء كذا كفران قال ما تشير باكل القضاء من يقبل صار كان شيء هكذا بكفر تفضل هلا من بعد شيء كذا لو فرد بركية ممكن وابليك يا حماول هي شابع كل بداية كل شيء هذا ولا غيره بركة ولا سويبي وحو عروتي بقى بلابي إلا أوريو عروتي بقى لين هلا أوريو أفر تواتك عروتي ولا قولي وحال غير شيء ما لا يراها شولية شواي تسير ذا كسبايا ولو رجع حسوستا أفر تواتك بقى لقوا بلابي لكيو واي فرح معي عروت هاي قاربا ويصور باشرة بقول أربعة بتقطعي أو كسبايا وصور باشرة عروت عروته وخا لا قري إنه محمد سياد بري وحو هبيري إلى عرول يريري سوق ودان oo markay gaaladu timaadeen rag la yiraahdo suuqa Muqdisho waa clean oo ciyaar yaro gidaar seexda ma jiro ila yiraahdo abuu jeclaysta waxa laga hadlayaa hadda xasuuso waa sanadkii caruurta markaas wuxuu sameeyay
wuxuu guray caruurta shabagayaal baa caruurta lagu gurayay caruurta sakraaminta gidaarada cabagta ku cabaysa kabaalashayaasha ama gawaari lagu guraa maalin walba qaalgaabta dambe wax dhamaanaya ilaa cirhidi ilaa iyo kaaraan ilaa batiisa tahay ayaa dayriile ayaa la guraa dadka caruurta la guraa ina yar oo caruuroo suuq maraya la waayay oo lugaynaya oo kuwaasa haddaanu shaaliyo su'aal qiibsan xidhnay waanu suuqa maray markaa maxamed wuxuu leeyahay ilaahay naxariistiisa waa siiye saasaan caruurta ka dhigay ayuu doonaya dunida ku idhaha markaasaa anigu galbaha ka mida baan caalgaabta yimi aniga oo jaamacadda la foole macalinka ah oo ka raacaya waxaan arkay ku yar baa aniga oo shilli markaa haysan oo lacagtii iga dhamaatay ayuu shaxaaday kolkaasaa waad yaabtaa duqsiga nabarra waad yaabtaa dul ku yaalla duqsiga fuule booda boog waxaanu cabbayaa xabag indhaha cas ixtiraamka ma yaqaano waayo waxa ixtiraamo kale inagaan ixtiraam mujtamacaan ixtiraamin isa wax ma ixtiraamo diinta aabbaha buu kulaya isagoo adoo ciro leh ayaynu kaa xishoonay oo diintaada caaya waa cadow ka samaysan yahay mujtamac cunuu naxariisanaysa naxariis ma leh naxariis baad ka doonaysaa qof naxariista waa lagu beeraa ubadka wuxuu ka fikirayaa siduu kuu xadi lahaa waayo cadow buu ku arkaa waxba sii leydii biniaadamkuna waxaad gashatay wuxuu biniaadamku marka dambe wuxuu noqonayaa dee kalbul mascuur buu noqonayaa haddaad adigu ula dhaqanto sidaa haddood noqoto inanku uu xabagaysan yahay naxariis badna iga fili maayo kow waana wada boog markaasaa boogaha markay maradu sidaa dabayshu uga qaado maradu ka qaado ayaa waxaad daawanaysaa qofkii kula hadlayay wada boog waxaa saasaa cutubyahaasaa u fuulaya kuwaasuu gacanta sidaa ku odhanaya kolkay kuwaasi ka duulaan ayaa guuto kale isla maradii imanaysaa haddana guuto kale oo horni oo haraadani ay gelaysaa meeshii anigoo daawanaya bilcadaabtan the embodiment of naartii oo qof laga dhigay anoo daawanaya oo waxa uga ay weydiiso shilina ma hayo oo dabadna uu hoosta iga raacayo oo calisay shilina ma hayo markaa waxaan haysaa shilina markii aan ku fuulayay baasha baskii aan afkooda ku tagay ay oo sidii taagtaagan oo isha ugu canaanayo aan waxaan daawanayo bini'aadamka cadiban oo uu taabtay halka naabiqiga qof waliba meesha gabayda xalka naabiqiga la yidhaha xalka gabya naabiqigayga uu taabtay markaa shucuurta aanarka ay taabatay ayaa barqula gaari blesii oo shabaglihiisa kaay soo ag taagay oo lagu soo caagasha inankii go'aan laala go'aan laga duulay uu qaylinaya inanku inta saa loo qaaday baa lagu waxaa ka buuxa kumayaanka boqolaalka dhowr tobannaan baa ku jira shabaglaha oo waa daf inta sidaa loogu cabbeeyey markaasaan ku kale oo cararayaan joojiyey war maxaad laqanaysaa markaasuu miyaanad ogeyn waxaa la gurayaa carruurtii caynka ahayd oo xaggee la geynayaa ufuud baa imanayso oo si aanay u arag oo ufuudda maxay u imanaysaa sanadkii carruurta eega de bal ironiga bal tanaaqudaadka hadlay waa kii loo daraynayay baa ayaa la xaraynaya markaa gabaygaa ninkay weydiiyey sababta uu ku yimi sidaasay ahayd ilmihii yaraa baan markaa ka sheekeynaya waa curuba baaday waa laan cusayba oo ciira fuushay curdin weeye qaadhay waa cudur jidh yeeshay waa baahi cagi leh waa ciid dadweyne canug laga sameeyey caynku u eegiyey carab laguma koobo waa caata miiqan oo caday ka dhuuban waa caadagoos yar waa ciirsilaawe waa kaba caseeye ceelgaabta jooga waa caadagoos yar ma yaqaan cisaynta qofna kama cabsoodo waa cadho garoodhay casar buu agtayda isagoo cagaagan oo caana waaye baatrool cabbaaya anoon caanad haysan kaga cawday gaajo oo aanan caawin sidii ruux canaaday goortuu cabbaar yar isha igu canaantay waxaa canatay siigo
calooshiisa qaawan markii ay ku ciirtay masrixii cadaabta oo cariya bayla calalkii ka fayday kala cunatay sheeko cayayaankii fiirshay cartanow boggiisa boogaha cunaayey duqsi aad col moodo oon cadad lahayni caabuqii korkiisa durbaqaasha saare carcartiya kulaylka kolkuu caydhsho guuto cutub soo hor yeelay ana cabal wareeray caalwaa daraaddii ciddiyaha qaniine waxna cirirka gaaxday igu sii cusleeyey cagiduu dhaqaaqay ciidan baa taxaabay lagu yidhi ciyaalka ciddar yeesho haysan ee aragga cawlan si laloogu qaayin ku cabbeeya gaadhi sababtoo ah caawa waxaa yimi curuuba dhowrufdoo caddaana iyo qaar ciraaqa oo cabbaasi leeyay waxaa loo casuumay sanadkii carruurta waxaa farxadii ah in aan markii labaad aan dhegeysto abwaankeena gaariya markii ugu horeysay oo aan ka qaybgalay Sweden waxaan keliya aan aad uga xumahay adduunkan hormar waxaad arkaysaan in ay dadka ku horumareen inay yihiin naqshad ama kuwaay wax ka haystaan laakiin anaga aan nahay bulsho qoraal maanta aan haysano keliya 2 saac oo aan ka faa'iidaysanayno asigoo gaariga tilmaamayo midda ugu horeyso asigoo aan leeyahay socdo oo aan daan ku helna maanta bulshadeena ugu keliya aan ka faa'iidaysano iyo marka labaad uu yahay gaariga buug oo aan ka faa'iidaysanayno 2 saac anuu aan akhrinayo marka كل حاجة على هالقضية ندم كان لها معلومين توقف كان وحكي الصومالي إن عن حوالي سؤال كل فيديو قراءة الصومالية ندم مرة بدنا تصير على أهم نوش وجاتي إن طلبات من لبض يصير بصوص على الجو يبتدي صوص على لغة الواقع إن قرحي الناس ترى بس سؤال شيء فيديو قراءة الصومالية فيديو وحن كل مركي ومسؤولين شكل وقت وقالينا كمية هتبدأ الصومالي واحتفل حتى إباطة بدأ أنا جاهز شتوء ودوسون تهمر هدي كنت جيحيني وبابعي إباطة وضع كان قبصتي كنت جينا وحا كل قاكول إلها حلينا هتقبيه مالي لنكسو إن هل أما هل لأجل قبل الله تحكي لي وقوله أفضل تصل حكا لله guddiga Soomaaliga wax ka qoray kuma jirin kuwii markii la qoray ku beeray baa lahaa markii la qoray immediately markii la qoray ee bixintiisa koridiisa ka qayb qaatay sanad kadib ayaana way dadaydan igu sumeeyay markaas oo waa yara waayahay su'aashaad ku soo khatitay yaaladahay wuxuu u badan yahay gobolada dhexe waa su'aal anigu aan ka jawaabi karin waayo waxaan uga fikiraysaa yani cid baa xukunka haysatay ciddii xukunka haysay baa wuxuu xaguu u batay xaguu u jejeystay baad weydiinaysaa anigu waxaan ahaan ku beeriye qof ka mid ah يعني ماشي كل شيء ما بدل كروته هلقو قفحال قفله ما بدل كقال كعي كل شيء قال كعيس ما بدل كرو لكن إلى سدا أو دعوه هذا ليش شيء إلى سدا أو دعوه هذا ليش شيء ليش شيء عد باله هلقو يكون كل شيء باله وايد حكم ما نهين حكم ما نهين إن هلقو يعني قف خبيث هذا اللي مخيّر لو حما كبيري كرياتي وحتى كبيري وما كبيري كريا decision aan lahayn oo hadii dhinac u jeesatay kuma jeesabin oo aad tabayso inay deebato dhinac ka rarantay anigu aan lahaa kumay iyo waxay la bidihiba kuma jeesabin malaha dawladii oo nool cidii xukunka haysi weydiisaabay ku wanaagsaneyd maxay xaga ugu jeesatay iyo hadal taatabayso taayta ka bixi lahaa oo waxa mas'uuliyadiisa la saari maayo tan kale waxaan baa isleeyahay malaha hadii la yiraahdo lahaa uu develop garoobi lahaa oo dad badan baa ka soo gali lahaa meel walba baa isleeyahay hadii la yiraahdo lahaa oo kubay may noqotay sidaa
oo laba siiba waqti uu ku koraba laba siiba 12 baa laga dhawaaqay 17 dagaal baa la galay dagaalkii afxaara la galay dabeedna khalaas waa sidee intii ka dambeysay deebooyi wax jiray baa tawtiin waa la isdilayo kolka dagaal baa ka socday oo istiqraarba ma jirin 5 sanadood buu waxariba iyo wuxuba deeyana waxaba leey wax weey baa la qabtay marka 5 sanadood laga hadlayo wax weey baa la qabtay qayb badan oo tadawurkii halkaas ka dhacayna si aan riidada tu noqon malaha waxaan aad uga hadlay Stockholm baan awaan markaa joogtay waan ka hadlay tadawurkeedii waxaana jecelahay dadka halka jooga cajaladii de soo qaataan si aan cajaladii qaar baa qaadanaya waxaan halka maanta kaga hadlay Stockholm kaga hadlay bood garanaysa qayb badan kaga hadlay qayb iyana baan kaga hadlay waxa Stockholm ay iska leedahay wax kala ka hadlay waxaan uga jeedaa oo meel walba iyana uga hadlaya tii hore ka duwan hay suuqa geystay ayaan uga hadlaya oo imka inta la kula hadlay Stockholm haysato oo meesha soo maray baa marka in la isu geeyo marka taariikhda ku soo koobi lahaa si waqtigu uu waxaan diibiyaa jaamac su'aal waqtigu aad ugu kooban iyo jiraan sal waqtiga xaq bixinta dad qabayl halkan ka guddoonsiyaan hadaba soo xamid iyo su'aal kooban oo jaamac rabay maxamed raaciye jawaabteedu محمد حاجي دمع صدق هذا موضوع معنا لكن قارية ويجرين مهم عني سيا قارية رجلين أنا إلى كنت صار على شركة وقت لا وصل تدفع تسوي معها تقرأ على المسيح كده ده واحد من الوقت واي محمد أحمد حاجي دمع marka waxa uu diiyaa waxa isbedel baa ka dhacay kaliya wadoodahay tsunami lagu weeyo ku dhacay suugaanta ku dhacay way suugaanta qof kastaaba waa qabiil waa la beddelay waxay ragii hawa la beddelay marka waxa uu diiyaa wax kastaaba inuu xajida aad ku iskuulay howta suugaanta aad ku iskuulay maxay leedahay yani qabiil waa la beddelay بريت بركة ما مير خلق بطا ما ده جريء هذا كوين ما متري بالون لا قاعد يلي كذا ما هو حافظ رك الشيء كوين طلبات حكلو كل بريت سيدي رك وربع عندي تسرع عربي يعلو يلا ما عبد الحنيو فادي لنا ده أوك ساير اللي أول ما نسمع مثل على واحد يسير سواء كوين التاريخ ركي واحد سريع الهساء محل حاليا أنت قلت لي سام حجزت التصوير حديني كيف مسافة يا مقعين سؤال شهرة أنت قارية وحولة هي مقعي قالوا قالوا هو كراس هذا قارية صار هي برعابة يبحثي وأكون كراسة يالو مقعة وايو waxaa lagu leeyahay markaan socod baratay ayaa lagu bixiyay hota gaaritu waa socod gaabni waxaad la gaargaarinaysaa haddii lagu yidhaaho maxaad la socod gaabantay weeye wuu gaargaarinayaa markaad licdeedu meel la gaari weydeed inta lagu meelaysato ayaa loo bixiyaa malaa markaan socodkaad qaaday ayay saasu tiri muxuu la gaargaarinayaa malaa socodkayga gaabnaa aawadii ayay u bixisay waxaan garaadsaday magaciyo laygu yeedhayo marka maxamed iyo waxaan isleeyahay waaba isku da gaariya waa isku da naaleysaha kale saasay kaga duwantay waa naaleys qof naaleysiisa ku garaadsaday wuu yariyey baan u malaynayaa wuu yariyey dadka barre la yidhaahaya baa ku garaadsada barre waa nin qofka bar leh waa uu ku garaadsadaa isaguna magacaykaasa marka waan ku garaadsaday saasaanay ahayd ta kale suugaanta copyright ma lihiin oo waa dhab waxa kaliya badbaadin karaa waa qoraal wax kale oo aanu deebi karaa ku sheegi copyright horta la iska gaadhay gabadheedu way qorayeen waxaan ka si badan way qorayeen digital age way ku jiraa waan qoraa waxay way qorayeen inkastoo wali buugaa ku soo baxay keegiyo ibka ku soo baxayo malaa wixii qoro baan dee raad yeesha laakiin tuugadu waa muush
aniga waxa in wax laga xaday anigu hayo wax laga xaday baan walba ka sheegayo baadi baan ka sheegaa laga xaday oo miisaankii baan buugaan ku qortay oo miisaanka soo saaray oo imika uu ku jira iimaashiina dii meeshan maxaa Scandinavian uu joogaa oo dhaxayo yaabay oo qofarkayba uu yaabay waxa uu ka keen tuugadu way jirtaa waxay naga badbaadin copyright oo tilaad dalku yeesho copyright waxaanu copyright bale anigu imika waxayga waa laga rogo ka baa cusreeriya shil baqa waa ka baqteeya waxayga rag baa ka baa cusreeriya oo copyright baa jiridii magaraysaa marka ayaa darada sheegaysa waan kula dareysanahay de waa reer darada tahay anaga u laba qaad su'aasha jawaabteedu anaga laga sugayo ragaad ku jirtaa baa laga sugayaa in wax xal loo yeelo ما كان عايز يشتغل كباب على ناقة ونبي بدل دلوقتي ده كفيلة عندنا هنا في جواب شمال ده في السودان هذا ينفع قام في السيا بقى واحد ثاني تركيا كوكو شرعية ده كفيلة مرة أو إذا هذا كحبل بقى كده بس ده طبعا كده شو هو حتى هو عاوز